السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan qaadan doonaa casharkeenii labaad tooliska Adobe Photoshop ayaynu bilaabi doonaa. Marka tooliska Adobe Photoshop waxaynu ka bilaabi doonaa toolisku waa qaybta dhinacan taala laftiga qaybta noo taala weeyaan. Waxa ugu badan isticmaalay waxaan sameynaa design-ka. Waxaynu bilaabi doonaa marka toolka ugu horeeya tooliska Adobe Photoshop waxaynu dhigan doonaa toolasha ugu muhiimsan waxa jira qaar loo isticmaalo dhanka photoshop badanka. Maadaama laakiin lagu focus saari doono design-ka waxaynu eegi doonaa tooliska ugu fiican marka muxuu ahaa la sameynayo design-ka ee la adeegsado. marka waxaan u wareejin doonaa qaybtan ugu horeysa waxa loo yaqaan toolka koowaad move tool baa la yiraahdaa. toolka ugu horeeya waxa loo yaqaanaa move tool. shaqadiisuna waxa weeye in muxuu ahaayay objectiveska waxyaabaha ku samaysan design-ka ku yaala qaybta workspace-ka design-ka lagu sameynayo in aynu ku qaadno. tusaale ahaan oo kale haddaan ku soo geliyo shape haddaan soo geliyo waxa ka soo dhigo waxaan u baahanahay shape baan u baahanahay inaan qaado waxaan samayn doonaa oo meel kala geeyo toolka iyo ogolaanay inaan qaado waa toolka move toolka waxay doonaan halka eegtaan mid kala baahdo barto kale oo isla qaadmi maayo laakiin haddaan tago move toolka oo sida yiraahdo waan qaadi karaya meel walba geyn karaya marka toolka shaqadiisa wax weeye waxa lagu talagalay qoraalada sawiraanta shayadka waxyaabaha sameyn soo dhayna qaadaysto lagu talagalay move tool baa la yiraahdaa way isaga laanta marka wax ku qaadnaya move toolka wax ku hoostira tool la yiraahdaa isagana artboard tool waa tool yar lagu talagalay in kala lagu sameeyo salaana waxaan u baahanahay inaan inta design oo kala ka sameeyo ama habir kale halka waxay u sameeysan doonaa wax la yiraahdaa artboard marka waa design-ka cad ee halka kaga soo darsamay haddii baad markaa inaan design wax ku sii yardartid artboard kaas isticmaal doonto hadda kala soo yaabaan haddaynu eegno toolka saddexaad haddaynu eegno loo yaqaanaa rectangular marquee tool baa la yiraahdaa saddex tool soo socda wax loo isticmaalo dhanka selection-ka marka doonaysa wax ku select gareysid ama inaad wax ku hayso qaaday marka haddaynu eegno rectangular wuxuu taraa markaad u baahan tahay shay application inaad jiratid ayaa loo isticmaalaa tusaale kale waxa la isawirka inta ay tirbaan leh markasta markaa oo shay qabanaysa waa inaad toolka tagtaa marka shaqada dhimay haddana inuu ka qaado shayga oo kalaana inuu wax gooyaa wax weeye waa rectangular marquee tool shaqadiisu waa maxay gooyin baa loo isticmaalaa selection plus gooyin marka doonaysa wax la gooyso waxna select garey marka doonaysa selection inaan ka noqdo waxa la yiraahdaa control iyo start sida wali soo celin doona selection ka dad baahan si noqotin control iyo d selection way macnaheedu soo kala xigta ka taa qaybta select inta hore ka taa deselect way toolka laba marka toolka wax hoos yaala electrical marquee tool leeyahay sababna muxuu ahaayay goobo weeyaan dad baahan inaan ishaas kaliya gooyo isoo mana calaamadinaya dadana move toolkan tagaya waxaa marka taas loo qaadayo labadoodu waa maxay waa in wax lagu goosto lagu talagalay haddaan doonaysa selection ka qaadan control iyo d way sidoo kale kuwana single row marquee tool iyo single column baa marka baanta column iyo rows hada table sameynayso kale ina select gareysid ayagana waa isticmaal tool kasta waxa la yiraahdaa qaybtan oo qayb selection ka mid ah laser tool wuxuu noo ogolaanayaa isagu toolka waa meego toolka wuxuu noo ogolaanayaa markaynu u baahannahay inaynu sawirkan goosano waan ku select gareynayaa ana markaa left click tahaya ayad soo select gareynayaa marka inta buu ku qaad doonaa wax kale uu ka reebay walaalaha inta saf oo dhan oo inta sawirada marka laga timaado la isticmaalo tani sida yiraahdo intaan calaamadiyay haddaan shaqaad intaas kale la filayo sawirkan kale wala it means waxa weeye aniga inta doortay marka taasna waa mid kamid ah muxuu ahaayay tools wax lagu select karayo control d baan ana soo noqono toolka ku xiga polygon oo mid kale la mid ah oo kaga duwan yahay marka doonaysa wax taxkiis oo kala bayra la laamaya ee loo isticmaalaa marka meesha doonaysa ku dhameysay click wala hada oo siro wasa click mudan taala click balaanahay ama soo xiro inta aad ku daayo move toolka tago intaas oo kaliya ka la qaaday waxa markaas qora oo qayb selection ka kamid control set diisku soo cali control iyo d select way marka ugu dambeyn waxa la yiraahdaa magic lasso tool isagana wuxuu hayaa waa mid kamid ah qaybaha selection loo isticmaalo sidoo kale hore uu fiir yahay wala raacsan ee ku qoran shaqada qaawad aan saaw isagana waa sidii isla mid ah oo qaybta selection oo kale waxaan leenahay meesha ka bilowdo markaa ku soo xiro kana move tool kana qaad waxaan oo dhan waa selection control set
control D laakiin waan arki doonaa toolka ugu fiican dhanka selection waxa la yiraahdaa toolka afraad waxa loo yaqaanaa quick selection tool marka horta object selection toolka aynu aragno qabanaya wuxuu qabanaya halkii marka aynu selection farabadan samayn mayno kaliya hal mar baynu jiideynaa wixii marka aad u baahan tahay in la select gareeyo ayuu automatically select gareynaya hal mar baynu qabanaysaa shaqada marka waxay maanta dhan jiideynaa hal mar inoo qabtay uu toolkan tagaya plan qaado kaliya tishara soo beebo control D toolka ku xiga waxa la yiraahdaa quick selection tool toolka badan kala isticmaala sawiranta wuxuu leeyahay markaas uu plus iyo minus buu leeyahay plus iyo minus plus waa marka doonaysa selection kusoo degtay salaana ka ujiyo kaliya baan tina select gareeyay taas ma hal mar noqonaysaa marka sawir gaarsiin haddaan u baahanahay markaa in muxuu ahay selection-ka predictor in bay raaceen ka soo celiyo kale ay minus kuma tagaya minus marka waa selection-ka baati selection-ka samaysay baati marka tamaasa sadoo kale haddaan toolka rabo oo ilaahdo aan ka qaado intaan select gareeyo tawa kale qaade hada marka marka sawiranta hagaajin arki doonaa iyadoo oo hayay intaas oo kaliya wajigoo kaliya la select gareeyo waayahay mate waan tool midana soo markano yaala waa qayb selection ugu dambaysa waxa leenahay marka sagana shaqadiisu waxa weeye kuwii hore uu ka duwan yahay isagoo ku doortaa wixii isku kalara soonaano kala qaybta group aan diimo keenay dooray background ku kaliya dooranay waxa kala dhan soo sheegay marka hadaan walaalo iska naano hadaan markina qoraan arag inaga gooyi soo ku meesha ka qaaday background-kina inuu daay marka shaqadiisu intaas oo kala ka duwan control D select on leeyahay toolkan waxa loo yaqaanaa crop tool baa leeyahay crop tool waxa lagu talagalay sawirkaaga in oo haya cabirkiisa ku yareysid ama design-kaaga waxa leeyahay marka crop-kan caadi yahay dan u baahan inaan yara jaro waxa leeyahay crop attack background-ka crop tool shaqadiisu waa qawaynta toolka ku xiga waxa loo yaqaanaa frame tool shaqadiisu waa maxay frame tool waxa lagu talagalay marka doonaysid inaad sawir meel soo gelisid sawirkaasina wuxuu ahay inaan inta cabirkaadu talagashay inaan dhaaf ala waxa leeyahay frame soo jiid frame baan soo jiiday dadka waxa doonayna soo galiyo ayaan tagi doonaa waxaan leeyahay embed sawirkan soo qaado kan marka sawirka dad ka sameeyo la galiyay frame baa la galiyay sawirkan hal galiyay frame marka marka baan soo kaagin frame galisid ayaad isticmaali doontaa toolka frame toolka ku xiga hadaan eegno waxa loo yaqaanaa toolka ku xiga waxa loo yaqaanaa iDrawber tool shaqadiisu waa maxay waxa lagu talagalay toolkan badanaa marka la isticmaalayo design-ka ayaa la isticmaalaa isagana shaqadiisu waxay tahay kala raanta ayaa lagu doorto tusaalahaan waxa leeyahay baahanay shapes baan u baahanay inaan laba kala la siiyo shapes baan u baahanay inaan laba kala la siiyo hal shay baan halkan dhigi doonaa halkan midowgu wataa haddana shape-kaan soo qaadi doonaa halkan baan ag dhigi doonaa labada shay ma soo kala waxaan doonayaa inaan ka bedelo kan casaan ka dhigo waxaan u baahanahay marka hadaba in muxuu ahaayey shape-kan casaanka kala kan casaanka inaan ka midowgaana siiyo waxaan tegi doonaa markaa toolka u tegi doonaa shape-ka kala qaybta shape toolka halkan baan iman doonaa qaybta waxaan iman doonaa markaa multiple colorista halkaa imika haddaad arkaysaa waxa shaqaynaya toolkii iDrawber ku shaqaysa waxay imika inta halkan click taag inuu kalarkiisa bedelo labada shape-na ay isku kala noqdaan marka marka doonaysa in laba shay isku kala ama laba design ay loo isticmaalaa iDrawber way toolka ku xiga waxa la yiraahdaa spot healing brush tool shaqadiisu waxay tahay markaad u baahan tahay in sawiranta finanka iyo waxyaabaha lagaga tirtiraado marka taan waxay leedahay sawirka ma doonaya in wax ka yari karo waxaan leeyahay markaa meeshaad u baahan tahay in wax ka geyso bas aad kaliya oranaysaa adigoo la tigtaaya dad baahan tahay marka inaan ishan qariyo kale saas ma yara qanaysaa waxa lagaga shaqeysanayaa muxuu ahaayey waxyaabaha finanka waxyaabahaas laga gooya toolka ku xiga brush tool baa la yidhaha isagana waa brushkii shaqadiisuna waxay tahay markaan u baahanay inaan sameeyo wax loo yaqaano haddaan doonay inaan sawirkayga yara mariyo muxuu ahaayey brush toolkan tegi doonaa waxaan odhan doonaa kolba ku qaadan doonaa kalarkan uu qaadanaya brush toolkan waxa weeye haddaan eegno
qaybta haddaan sida idhaahdo waa kalarka madowga kalarka madowga see loo bedelaa oran doontaa dushiisa kigi leedahay dadkana halkaas soo dooro nooca doonta ka dhig dadkana waxaa taan u baahnay markaa bas tuulkan imanaya inaan isticmaalo saasaan leeyahay cabirkiisana la kordhin karaa waa kan size dadkana waxaan u baahanaya waa ku masaxayna waxaan u baahanayaba ku masaxayna bas tuulka shaqadiisa marka waa sidaa laga soo noqon kan tracer marka u baahantayna sida design kiisa kusoo celisiid kan tracer baan leenahay way toolka ku xiga haddaynu eegno brush toolka loogu isticmaal badan marka la joogo dhanka designka waxa weeye muxuu ahaay eraser toolka eraser toolka markaas saddex tool baa halkan soo jira shaqadoodu waxay tahay eraser toolka sida caadiga wax lagu masaxaa marka u baahan tahay shape inaad bar masaxdid ayaa la isticmaalaa eraser toolka ku fanaa marka dadkana sawirkan laftirkiisa ayaan masix doonaya sawirkan laftirkiisa ayaan wax ka masix doonaa taana markaan sawirkii doorooyin kale imo doono sawirka dooro dadkana laftirkiisa masax هذا يصير لك اسمه كعب كتير لقطية وكم لأنه مكان مصح لما واحد ماشي على دونه مسيح ثانا مثلا خلاص عن تجربة من الرسالة هاي من التحديد هاي الله يستعمل على كذا ترك ومصحابي أنت رسالة بلاناي زي نقول الناس اللي هذه جاي خلاص يمد إلى باكر رسالة تول أو يسوي شيء يستعين باكر كمصحة نسلوها صار مسيح ما يلاقون مصحية background ka yar hoos u inaga saxaya qodba tii background kina chatid baa markaa loo isticmaala kan tracer baan leenahay isagana toolka ugu fiican ee lagu jiro background waxa la yiraahdaa magic eraser tool shortcut-kiisu waa e waxaan leeyahay waxaan u baahanaynaa soo background ka jiro salahan kale soo baan soo qaadi doonaa soo kan background buu wataa sida caadiga soo ka soo qaatay background waxaan u baahanahay markaan background ka gooyo waxaan leeyahay tag doonaa eraser toolka dadka magic baan ka dooranaya click baan automatically marka waxa laga jari doonaa background maadaama sawirkan uu inoogu jiro frame sawirkan caadi baan mar labaad soo gelin doonaa si sawirkan soo geliyo waxaan leeyahay file dabeetana place embed marka doonso design kaagana sawirka soo gal sawirkan caadi aan soo daro waa kan sawirkii waa kan backgroundka buluuga waan u baahanahay markaan ka tag doonaa image kala toolka click baan leeyahay tan okay tan waa ka jaray soo waqtiga backgroundka meesha waa laga saaray toolka inuu isticmaalna wuxuu ahaa image kala toolka shaqada waxa marka backgroundka meesha ka move karay toolka ku xiga wax la yaqaan hadda wax la saxlo toolka ku xiga wax la yaqaan gradient tool bashqadiisa iyo waxyaabahaasna waynu soo arki doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته